habeennimadii markay ahayd 9kii habeenimo ayuu yimi guriga iyadoo xaaladdu ay iska degan tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin isla markaana waxa ka bilowday ismaandhaaf la xiriira hadallo la isku celceliyay ismaandhaafkaas wuxuu isu bedelay in uu hadalkii ugu argoosto inuu nafta seejiyo marxuumad luul cabdicasiis ilaahay uu naxariistay sagaalkii markuu yimi habeenimo qadar 9 iyo 20 daqiiqo ah qiyaastii ayuu ka baxay guriga burankaas isagoo xanaaqsan hadallo la isdhaafsaday waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo al-aamin kaalintaas shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baaziin hadba kii loo yaqaan geeyiga Soomaaliyeed kaasoo ahaa dil loo geystay islaan marxuumku geystay falkaasoo geystay eedaysana macallin sayid cali macallin daawud inib bilan xirsi cismaan ku dhashay xamar degan degmada Dharkiinley falkaasoo ahaa mudan gudoomiye inay khilaaf uu dhex galay asaga iyo marxuumad luul cabdicasiis oo ahayd xaaskiisa kadib murankaas wuxuu ahaa muran caadi ah oo afdhaaf ka dhashay qoyska ah kaasoo ah motifkii ama sababtii keentay dilka uu geystay eedaysanuhu taariikhda aan kor ku xusay ee ah 26 January 2024 habeennimadii markay ahayd 9kii habeenimo ayuu yimi guriga iyadoo xaaladdu ay iska degan tahay wax dhibaato ah aysan ka jirin isla markaana waxa ka bilowday ismaandhaaf la xiriira hadallo la isku celceliyay ismaandhaafkaas wuxuu isu bedelay in uu hadalkii ugu argoosto inuu nafta seejiyo marxuumad luul cabdicasiis ilaahay uu naxariistay 9kii markuu yimi habeenimo qadar 9 iyo 20 daqiiqo ah qiyaastii ayuu ka baxay guriga burankaas isagoo xanaaqsan hadallo la isdhaafsaday waxa uu tagay kaalin shidaal oo la yiraahdo al-aamin kaalintaas shidaalka ayuu wuxuu ka soo katay shidaal ama baaziin hadba kii loo yaqaan waxa uu galay guriga isla markiiba muddo 10 daqiiqo wax ilaa 7 daqiiqo ku siman waxa uu galay marxuumadda oo qolka ku jirta waxa uu ku bilbilay korkeeda markuu ku daadiyay oo ay uur u lahayd oo markaas xaamilo iyo walac isku jira ah tabarna aan lahayn ayay ahayd maamadaas kadib markuu intaas oo ficil u geysay eedaysane sayid cali wuxuu go'aansaday inuu ka fakado goobtii iyo gobolkaba waxa uu u baxsaday eedaysanuhu intaanan u gudbin baxsashadiisa mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh maxaa sababay dilka muxuu yahay motifka ka dambeeya ama sababta keentay inuu dhaco dil nuxurka iyo baarista iyo gabagabada hay'adaha booliska iyo xeer ilaalintu ay ogaatay ayaa ah inuu ahaa muran dhex maray oo kaliya nin iyo xaaskiisa waxa dhex mari kara mar walba muran dhex maray oo kaliya ayuu ahaa baaritaankii ugu dambeeyay intaas ayaanu ku ogaanay waxa ka horeeyay muranka ama baaziinka intuusan ku shubin gudoomiye waxa ka horeeyay fal gacan qaad ah muranku wuxuu dhalay fal gacan qaad ah gacanta la isula tagay kadib buu baxay baaziinka soo gatay sameeyay ficilka arxan darrada ah mudane gudoomiye waxa sababay horta waa intaas waxaan rabaa afar iyo 20kii bishii koowaad 2024 oo ah taariikh ka horeysay laba bari dilka barxoomadda ayaan rabaa maxkamadda sharafta leh furfurashadeeda inaan ugu daro hadal yar ama dhacdo yar oo dhacday 24 January waxa dhacday
in eedaysanuhu uu isku dayay inuu dilo marxuumadda. waxa uu soo qaatay letter ama sigaar baalka loo yaqaano sigaarka lagu cabo. waxa uu soo qaatay carfiso ayada oo qolka qol kamid ah ku jirtana ayuu wuxuu kaga buufiyay madaxa dabna inuu qabasiyo damcay way ka baxsatay. waxaan kor keeni doonaa maxkamadda marxaantiyaal arrintaas caddayn doona hadii Ilaahay yiraahdo. mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh dhacdadaasi markay dhacday eedaysanuhu wuxuu u baxsaday isla markii uu falka geystay albaabkan kor kaga soo xiray. dabcan xiritaankaasi wuxuu ahaa shan baaritaan ku ogaanay handaraabka ma gelin laakiin wuu ku soo qabtay ilaa ay si fiican u gubatay ma sii dayn cabaar buu ku hayay handaraabka maadaama uu ahaa dhalinyaro ah xoog leh ayaduna ay qof xaamilo ah walacsan ma garanaysaa iskana xanuunsanayd sidaan ku soo gudbin doono cadeymaha aan soo gudbinayno. waxa uu u baxsaday isla markiiba gaari ayuu ka qaatay geerish u dhow ugu jiray wuxuuna aaday suuqa xoolaha guri ku yaal halkaas oo uu ku dhoomalaysanayay ilaa markii dambeeto uu ka baxay qaab qarsoodiye oo dhoomaalaysayna uu ku aaday gobolka Galguduud. halkaas oo ugu dambeyntii 5tii bishii 2024 waqti badan iyo juhdi badan iyo kharash badan iyo ciid iyo dadaal badan oo ay geliyeen dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedka Galmudug lagu soo qabtay isla markaana lagu keenay magaalada Muqdisho oo ah meesha falka dhacay.